السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada casharkeenii shanaad laabkiisii ayaynu ka shaqayn doonaa insha allah. laabkan wuxuu ka kooban yahay router iyo switch iyo saddex computer ayuu ka kooban yahay. waxaynu configurayn doonaa marka aynu configurationkan ka samayn doonaa stepskan ah routerka iyo switchka. hadda markaad dul tagno laba jeer aan ku dhufan doonaa oo aan furi doonaa oo keliya talaagsa marka ay real life-ka ay tahay ama sida caadiga ah switchka marka la configureynayo saynu soo aragnay waxaa lagu xirmaa console portiga ayaa lagu xirtaa halka ayaa laga configurationka laga sameeyaa CLI ama network ayaa usoo dhexmari kartaa computerka IP hadduu haysto oo kale IP-ga routerka iyo switchka baa gaari kartid IP-ga adoo isticmaalaya ayaad soo geli kartaa through network. haddii physical ahaan aa ula joogtidna console portiga waa taa soo aragnay. laakiinse hadda maadaama simulatorkan uu yahay mid loogu talagalay in ardaygu uu ku barto si fudud ayaad halkan ku dhufanaysaa CLI ayaan tegaynaa. halkan ayaa marka waxaa noo soo baxaya configurationka aan sameynayno oo dhan halkan ayaan ka arki karnaa. marka waynu soo aragnay qaabka wax looga bedelo tusaalahaan farta haddii aad rabto inay weynaato oo kale iyo qaabeyshinkaas oo dhan waa tadaan dhahno waxaynu wax ka bedeli karnaa foontiga fartu nooca ay tahay iyo sizekeeda marka waan weynaysanaynaa tusaale ahaan farta iyo inay waa weynaysanaynaa insha allah ilaa 10 ayaan ka dhiganaynaa kadibna apply macnaheedu farta aynu arkaynaa si ay nagu yara weynaato. okay hadda sidii hore waa ka muuqaalku ka fiican yahay. okay marka halkaas ayaan kasii wadaynaa insha allah. halkan marka su-aasha u horeysa in la weydiiyo waxa weeyaan host name-ka inaan bedelno of the router and switch. haddaynu fiirino switch iyo router baynu haysanaa routerka iyo switchkaba inaynu bedelno magacooda aynu ka dhigno router 1 iyo switch 1. markaan routerka magaca ka bedelayno global configurationka anagoo joognaa ayaa waxaan qoraynaa host name kadibna magaca aan u bixinayno ayaan sameynaynaa. modka saan ogeyn waynu aragnay marka u horeysa user privilege mode ayaa joogtaa ama user mode enable haddaad tiraahdo waxaad tegaysaa user privilege mode ayaa tegaysaa privilege mode user mode buu ka yahaa user exit mode ama user mode privilege mode ayaan joognaa. marka host name-ka halkan kama bedeli karno sababtoo commandigani halkan kama shaqeeyo. si uu commandigan u shaqeeyo waa inaan galaa global configuration mode-ka ama config t waa inaan dhahaa simply. config terminal markaan joogo waxaan ku garan karaa calaamada configta ah iyo hashtan ka horeysa ayaan ku garan karaa marka ayaan commandiga hostname ii shaqeynaya. hostname-ka maadaama router 1 aan ku jirno simply router 1 ayaan dhahaynaa sidaas marka ayaan waxaan ugu bixinay router 1. okay hostname-kii marka meeshii uu awalka ahaa router uu ka ahaa hadda wuxuu noqday maxay halkan haddaad fiirisid router 1 ayuu noqday. okay sidaa si lamid ah switchkana waa inaan magaca ka bedelnaa haddii aan soo furno isagana physical ahaan switchku waa sidan marka CLI ayaan tegaynaa simply halkan meeshan ayaan waxaan dhahaynaa enable user exit mode ayaan joognaa waxba kama bedeli karno hostname-ka enable ayaan leenahay marka privilege mode ayaan soo galnay config t baan leenahay simply configuration terminal oo aan soo gaabiyey waaye waataynu aragnay commandiyada inaad soo gaagaabin kartid oo config terminal meesha dhamaystiri lahayd config t config haddaad tiraahdo calaamad su-aal yacni exit aan dhaho marka hore config haddaan dhaho con laba commandi weeyaan commandi la dhaho configure iyo commandi la dhaho connect. marka config say u noqoto f ayaan raacinayaa terminalna t keliyata ayaan dhahayaa commandiga keliyata ayaa jira wax terminala isagana marka host name magaca markaan ka bedelayno host name ayaan leenahay switch 1 simply marka magacii awal wuxuu ahaa switch ayuu ahaa hadda laakiinse wuxuu isu bedelay switch 1. habkaas marka waa habka magaca loogu bedelo switchka ama routerka marka uu defaultiga yahay waa router iyo switch. laakiinse markaa configurationka sameynaysid si aad hadda u garatid meeshan ama switchkan aad ku jirtid maadaama uu CLI yahay magaca unbaa ku kala duwi kartaa hadday kulli device-yadaada iyo switchada iyo routeradaadu ay wada router iyo wada switch ku qoran yihiin way adkaanaysaa inaad kala socdid keebaad hadda ka shaqeynaysaa iyo keebaa kii kala ah. okay halkaa markaynu su-aasha ka jawaabno
ta ku xigta simply waxa weeyaan configure unencrypted enable password oo aan encrypted ahayn oo aanan qarsoonayn oo passwordkii uu muuqdo oo CCNA samee labada device-ka routerka. Su-aasha labaad waxay noqonaysaa inaynu sameyno password marka aan encrypted ahayn. Simply routerka ayaan soo kicinaynaa, exit ayaan leenahay, ama anoo global configuration anagu joogna ayaa waxaan dhahaynaa enable passwordka marka aan ku xirayno. Tusaale ahaan passwordka waxa weeyaan CCNA, marka unencrypted waxa loo yiri waxa weeyaan isaga oo qoraal ayuu ka muuqanayaa running config marka la exit haddaan dhahno. Tusaale ahaan su-aasha labaad ayaa waxay tahay exit inaad tiraahid mode and test the passwordkii inaad tijaabisid. Marka exit ayaan ku celinaynaa. Passwordkii haddaan damacno marka enable inaan dhahno, passwordkii ayaan la weydiinayaa. Passwordka hadduu capital ahaana capital ayaa ka dhigaysaa, hadday small ayaan ka dhigay waa khalad, marka CCNA uu ahaa. Saas awgeed passwordka markaa gelinaysidna ma muuqanayo meesha aad ku qoraysid. Sidaas marka waxaan ku joognaa hadda enable ama privilege mode. Haddii aan gudaha usii galno global configuration config terminal ayaan dhahaynaa. Qaybta ku xigta waxa weeyaa marka waa view the running config-giina aragtay ama configuration show running config aan dhahna show running config. Marka show running config haddaan dhahno, tusaale ahaan waxaynu arkaynaa inaynu arkayno passwordkii aan gelinay. Configurationskan way iska badan yihiin, laakiinse anagu hadda midka aan sameynay simply waa inaynu enable CCNA ku xiriray. Haddaan marka halkan fiirino enable password CCNA configuration kaliya aan sameynay waa kan. Marka configurationadan kale waa iska default, waa interface-yada iyo waynu arki doonaa insha Allah kulligood. Marka enable passwordka waan ku xirnay. Routerka switchka ayaan marka tegaynaa. Sidoo kale switchkana simply waxaan dhahaynaa global configurationka anagoo joognaa enable passwordka waxaan ka dhigaynaa CCNA. Exit ayaan leenahay. Marka haddana exit kale ayaan dhahaynaa oo user privilege mode ayaan ka baxaynaa. User exit mode anagoo joognaa ayaa waxaan dhahaynaa marka enable haddaan dhahno passwordkii inaan gelino waaye CCNA, passwordkii waan gelinay. Okay, marka haddaan halkan joogno tabtu way noo shaqaynaysaa oo waxaan dhihi karnaa show running configurationka kacsana tus. Laakiinse haddii aan joogno global configurationka, haddaan joogno config terminal aan gudaheeda ku jirno, ma dhihi karno show running config, sababta commandigaasi kama shaqaynayo. Show running configa kama shaqaynayo global configuration mode oo commandi loogu talagalay maaha. Saas awgeed si aad commandi privilege exit mode ku shaqaynaya adoo global configuration mode jooga si aad ugu isticmaashid, waxaad ka hormarinaysaa do. Marka command line-ka waxaan ogeyn do haddaan dhahno running config show running config, marka waa do show running config. Marka commandigan inta badan haddii aad ku isticmaalaysid command loogu talagalay privilege exit mode-ka config. Marka privilege exit mode-ka haddii aad rabtid inaad ku isticmaashid command aad ku isticmaalaysay, okay, halkan ayaa cafwan running config waaye do show running config. Marka commandiga tab ma helaysid oo marka aad command ku shaqaynaysid command loogu talagalay yani privilege exit mode marka isticmaalaysid do show running config. Marka simply waxaad ka hormarinaysaa do ayaad ka hormarinaysaa commandigiisa uu kugu shaqeeyo global configuration mode-ka. Haddii aan fiirino marka passwordkii aan gelinay CCNA password ayaan niri, enable passwordkii aan gelinay. Tusaale ahaan commandiga kan aan kor u qaadno, aan falaarta dib u celino, waxaynu arkaynaa enable password CCNA password marka mutaxan inaan gelinay. Ensure the current password and the future password are encrypted. Marka passwordada mutaxan ee kugu jira hadda iyo kuwa mustaqbalka aad gelin doontidba in la maldaho oo encryption lagu sameeyo samee. Marka encryption si loo sameeyo waa taan soo aragnay. Haddaan tusaale ahaan surface password encryption ayaynu kicinaynaa. Surface password encryption marka waxay naga saacidaysaa
in password kasta oo noo samaysan uu maaragtay uu encrypted noqdo. Show haddaan dhahno hadda tusaale ahaan show running config haddaan dhahno waxaynu arkaynaa password kasta oo noo samaysan inuu yahay mid maldahan ama mid dahaaran inuu yahay. Tusaale ahaan halkan oo kale password 7 ayaa ka horeysa. Password 7 marka uu fudud yahay waa la jebin karaa internetka haddaa geysid. Tusaale ahaan passwordka haddii aan soo copy garaysano oo aan halkan keeno password 7 decryption ayaan ku samayn karnaa ama qaabkii qoraalku ahaa ayaan ku celin karnaa. aan reverse dhahno waa u jeednaa marka passwordkii simply qofku waa uu jebin karaa. Marka passwordkaasi secure maahan, waxaa laakiinse ka securesan passwordka kale. marka sidoo si lamid ah aan password 7 aan ku xirno routerkana enable haddaan dhahno passwordka aan gelino ccna show running config. passwordka marka haddii la arkayo tusaalehaan qof hadduu kaa dambeeyo oo kale waa tanary si fudud ayuu markaa ku arki karaa passwordadaada. passwordada dhan marka waa inaan encrypt gareynaa password 7 ka dhignaa. si aan marka encryption ugu sameyno config terminal global terminalka ayaan geli doonaa global configurationka. kadib waxaan ku qoraynaa service password encryption. service password encryption haddaan dhahno password kasta oo hadda noo samaysan oo clear text ah wuu isbedeli doonaa, wuxuuna noqon doonaa password xiran ayuu noqon doonaa ama password encrypted ah. laakiinse passwordka encryptedka secure maahan. okay, maxaa ka securesan marka? waxaa ka securesan view the password in the running config waynu aragnay. marka config more secure password ama password secure inaad samaysid oo enable ah loona yaqaano enable secret ama privilege exit modeka. which password you do marka enable password oo siska ah oo maaragtay labada device ku jira oo encrypted ah inaan sameyno oo more secure ka securesan enable password. marka config terminal ayaan leenahay, meesha enable password ka lahayn ayaa waxaan dhahaynaa enable secret. isagu marka secret wuxuu isticmaalaa hashing algorithm loo yaqaano yacni md5. cisco ayaan ka dhigaynaa marka passwordka. exit haddaan dhahno aan exit dhahno tusaale ahaan enable aan dhahno labadii password waxaan kusoo gelaynaa midkii ciskada ahaa ee dambe. show running config haddaan dhahnana waxaynu arkaynaa in passwordkii labadii password ay ku jiraan. midna waxaa ka hormarsan 5 oo ah md5 encryption, midkana waa password 7 isaguna markaas waa passwordkaas encryptionka laakiinse kan ma gaarayo oo waa la secure. kani waa la decryption ayaa lagu samayn karaa, dib ayaa loo celin karaa. marka sidaas lamida cisco switcheskana waa inaan isagana password adag ku xirnaa. enable ayaan dhahaynaa marka config terminal ayaan gelaynaa. enable password meeshaan ka lahayn ayaa waxaan dhahaynaa secret. marka passwordkaan ku xirano waa cisco weeyaan. exit haddaan dhahno tusaale ahaan show running config aan dhahno labadii passwordba marka waa arkaynaa midkii md5 ka ahaa iyo midkii password 7 ka ahaaba. laakiinse haddii aan exit dhaho passwordka aan kusoo geli doono keebuu noqon doonaa? ma enable ma ccna buu noqon doonaa mise cisco? enable secretka maadaamuu cisco yahay isaga ayaa ka awood badan enable passwordka oo ka securesan. kaas ayaana qofku isticmaalayaa si ugu soo galo enablesha. intaas marka kadib waan save gareyneynaa. savingku markaan save gareyneyno simply laba hab ayaan samayn karnaa. inaan right dhahno hadda haddii aan dhahno tusaale ahaan show laba file ayaa jira, show running config oo ah configurationka hadda kacsan ee active-ka ah, iyo inaan dhahno show startup config configurationka uu kusoo kici doono systemku ama startup config. show startup config. marka show startup config haddaan dhahno hadda wax configuration kuma jiro, waxba nooma soo saarin. laakiinse haddii aan rabno inaan save gareyno right ayaan dhahaynaa ama right memory ama waxaan dhigi karnaa copy marka confirm ayaan dhahaynaa. okay, saddexda habba waa u save gareyn karnaa. hadda haddaan dhahno show startup config haddaan dhahno waxaanu arkaynaa in configuration uu jiro, laakiinse routerka weli maynaan save gareyn. marka isaga haddii aan dhahno tusaale ahaan show startup config haddaan dhahno ma arkayno wax startup config haddaan dhahno routerka enable passwordkii waa inaynan ka weynaa weyaan maadaama aynaan save gareyn.
hostname okay ama show running configurationka hadda kacsan configurationka kacsan waynu ujeednaa enable secret iyo enable password labadaba way ku jiraan haddaan dhahno marka show startup config ama startup configuration ma arki doono labadii password aan ku xirnay laakiinse xitaa hostnamku waa router waaye r1 baynu ka dhignay weli ma aragno marka si aynu u save garaysano right ayaan leenahay haddaan dhahno marka show startup config waxaynu arkaynaa marka inaynu helayno labadii password iyo hostnameka aynu ka dhignay r1 marka savingkuna waa sidaas casharkeenu marka intaasuu ku egyahay waxaan ka tegay